kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kooda ugu doorka roona waxaa kamid ah dib u dhac markale ku yimid shirka Afisiyoni oo maanta loo balansanaa dawladda Soomaaliya oo xirtay gal dacwadeedkii loo haystay Cabdirashiid Janan Somaliland oo soo bandhigtay saraakiil iyo ciidamo ka goostay ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee xoogga dalka maxay ku kala duwan yihiin dambiyada lagu kala eedeeyay Cabdirashiid Janan iyo Mukhtaar Robow dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo anfarta oo ka bilowday dhulka dawlad deegaanka Soomaalida markale kulanti haboon daawadayaal fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka sidoo kale like saar commentina ka dhiibo asxaabtaada u share gareey videoga mahadsanid dib u dhac ayaa maanta markale ku yimid shirka Afisiyoni oo maanta oo talaado ah loo balansanaa shirka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo maanta la filayay inuu ka qabsoomo teendada Afisiyoni ayaa markale dib u dhac ku yimid shirka oo dib u dhaca uu ku yimid ayaa sababtiisa waxa lagu sheegay in madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug uu safar degdeg ah ugu baxay deegaanada Galmudug taasina ay keentay in shirka dib loo dhigo isla markaana maalinta berita ah oo 7 bisha ah la filayo in mar kale uu shirku ambaqaadmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalintii Sabtida ahayd ee aanu soo dhaafnay waxa uu daaha ka rogay kulan hordhac u ah shirka wada tashiga qaranka ah oo ay yeelanayeen dhamaanba shanta madaxweyne ee dawlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble waxaana shirkan uu ahaa mid looga hadlayay arrimaha cakiran ee dalka iyadoo ay qayb ka ahaayeen kulamadani kuwa lagu xalinayay arrimaha khilaafaadka ee ka taagan doorashooyinka dalka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si aad u khilaafi uga dhaxeeya waxaana arintan ay keentay in doorashada dalka waqtigeeda uu dib uga dhaco isla markaana la keeno kulamo la doonayo in lagu xalliyo isla markaana la isugu soo dhaweynayo hogaamiyaasha balse wali waxaa jira isfaham darro ka dhaxaysa madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada taasi oo keentay in lagu baaqo in si degdeg ah arrimahan loo xalliyo beesha caalamka ayaa iyadoo cadaadis xoogan saareysay madaxda dawladda iyadoo oo sheegtay in loo baahan yahay in la sii ambaqaado kulamada lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka waxaana jirtay in baaqiyo kala duwan ay soo saartay saaxiibada beesha caalamku taasi oo ay ku taageerayaan wada hadallada iyo wada xaajoodka socda waxaana haatan mar kale dib u dhac uu ku yimid kulamada socda waxaana la filayaa in kulamada soo socda lagu soo gabagabeeyo khilaafka jira iyo sidii uu qabsoomi lahaa shirka madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada kaasi oo dhammaan lagu xalinayo tabaashooyinka jira madaxtooyada Villa Soomaaliya oo iyadu ka hadashay kulamada ay isugu imaanayaan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ayaa waxa ay sheegtay in laga digtoonaado in kulamadaasi dib loo dhigo waxaana ay tilmaantay in ay madaxtooyadu diyaar u tahay in la xalliyo iyadoo ugu baaqday madaxweynayaasha mucaaradka ah inaysan la imaanin qodobo dhowr ah oo dib u dhigi kara kulamada socda agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada Villa Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay shirka madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyadu ay isugu imaanayaan iyo waxyaabaha laga filan karo waxaana uu ku baaqay in madaxda dawlad goboleedyada qaar oo dawladda ka aragti duwan aysan la imaanin shuruudo dib u dhigi kara shirka waxaana uu ugu baaqay inay la yimaadaan waxyaabo hore u socodsiin kara shirka agaasimaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in shuruudo hor leh aan lagu xirin heshiiskii 17 September kaasi oo uu sheegay in khilaaf uu dhalin karo waxaana uu dhanka kale dalbaday in dhinacyada kala duwan ee shirka ka qaybgalaya ay ka shaqeeyaan sidii loo sii ambaqaadi lahaa wada hadallada lagu xalinayo arrimaha khilaafaadka dhanka kale agaasimaha madaxtooyada ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar saacadihii la soo dhaafay soo baxay kuwaas oo sheegayay in shirka madaxda dawladda ee teendada Afisiyoni ka socda uu burburay isla markaana lagu kala kacay waxaana agaasimuhu u tilmaamay in wada hadalladu wali ay socdaan oo aysan jirin wax dhamaaday ama fashilmay isla markaasna ay sii socon doonaan wada xaajoodyadu dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xirtay gal dacwadeedkii loo haystay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan warqad qoraal oo ka soo baxday xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka ayaa waxa lagu sheegay in gabi ahaanba la xiray dacwadihii loo haystay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhawaan isku soo dhiibay dawladda federaalka Soomaaliya
warqad ka soo baxday xafiiska xeraalyaha isla markaana la ogeysiiyay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in iyadoo oo dhinacyo badan laga eegayo kiiska dacwadda ee loo haysto Cabdirashiid Janan in xeraalyuhu uu laalay. Cabdirashiid Janan ayaa lagu eedeeyay inuu geystay dambiyo badan oo dhanka bini'aadanimada ah, waxaana in muddo ah uu baxsad ka ahaa dowladda federaalka Soomaaliya oo qudheedu sheegtay in Cabdirashiid Janan uu ku eedeysan yahay dambiyo isla markaana maxkamada la horkeenayo. Warqadda ayaana waxa ay u dhignayd iyadoo la eegayo tala soo jeedinta baaraha iyo xeraalyaha kiiska gacanta ku haya iyo qodobada sharciga ah ee ay u cuskadeen tala soo jeedinta. waxa uu xeraalyuhu go'aamiyay in la xiro galdacwadeedka loo haysto wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, waxaana maxkamadda gobolka Banaadir dhankeeda ay sheegtay inay aqbashay galdacwadeedka uu laalay xafiiska xeraalyuhu. warqad qoraal ah oo barbar socotay oo ka soo baxday xafiiska maamulka gobolka Banaadir ayaa iyaduna waxa lagu sheegay in la aqbalay galdacwadeedka la xiray, waxaana ay sheegeen in eedeysanaha wasiir Cabdirashiid Janan galdacwadeedkiisa la laalay uu yahay mid waafaqsan isla markaana ay aqbaleen in la xiro. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ah wasiirkii hore ee amniga Jubbaland ayaa markii dowladda federaalka uu isku soo dhiibayay laga qaaday jagadii uu ka hayay maamulka Jubbaland, waxaana jirtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u sameysay ballanqaadyo fara badan oo ay ka mid ahayd in haddii dowladda isku soo dhiibo laga cafinayo dambiyada uu galay isla markaasna dowladdu ay u oofisay ballanqaadkaasi. waxaana sidoo kale jirtay baaqiyo kala duwan oo ka soo baxayay hay'ado caalami ah oo ay ka mid tahay hay'adda Amnesty International, taas oo sheegtay in loo baahan yahay in wasiirkii hore ee amniga Jubbaland markii uu dowladda isku soo dhiibayay in loo baahan yahay in ninkan cadaaladda la hor keeno oo uu geystay dambiyo. dhanka kale maxay ku kala duwan yihiin dambiyada loo haysto Cabdirashiid Janan iyo Mukhtaar Robow ayaa waxaa dowladda federaalka Soomaaliya uu xiran yahay in muddo ah, waxaana dhankiisa uu ahaa nin dambiile ah oo isku soo dhiibay dowladda, balse dambiyada loo kala haysto ayaa loo kala saaray dhinacyo kala duwan. waxaana la sheegay in Mukhtaar Robow loo haysto eedeymo ah inuu dambi ka galay qaranka, halka Cabdirashiid Jananna loo haysto inuu dambiye ka galay kaliya inuu dambi ka galay jufo isagu uu ka soo jeedo, kuwaas oo caleemo qoyan ku soo dhaweeyay. waxaana la sheegay in iyadoo tallaabooyinkaasi la raacayo dowladda federaalka Soomaaliya ay iska cafisay maadaama dadkii dambiga ka galay ay cafiyeen. Mukhtaar Robow oo waayihii dambe isagu ahaa mid dowladda federaalka Soomaaliya u xirnaa ayaa waxaa la soo qabtay xilligii ay dhacaysay doorashadii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dagaal xooggan oo u dhaxeeya Canfarta iyo sidoo kale Soomaalida ayaa ka bilowday dhulka dowlad deegaanka Soomaalida. ciidamada Canfarta ayaa waxaa la sheegay in dagaal xooggan ay ku soo qaadeen Soomaalida, gaar ahaanna Soomaalida degan galbeedka gobolka City oo ka tirsan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida. dagaalka oo khasaare kala duwan geystay ayaa lagu soo waramayaa in haatan uu yahay mid wali soconaya isla markaana u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta jabhad ka tirsan. inta la xaqiijiyay 2 qofood ayaa ku geeriyootay iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5 qofood oo kale, sida ay xaqiijinayaan wararka aanu ka helayno dhulka dowlad deegaanka Soomaalida oo dagaalku uu ka soconayo. maalmo ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale dagaal xooggan uu dhaxmaray dad shacab ahaa iyo jabhad ka tirsan Canfarta, kuwaas oo khasaare kala duwan u dhaliyay dagaalkoodu. waxaana la sheegay in sidoo kale dagaalkaas oo maalmo ka hor dhacay ay soo qaadeen Canfartu. weli si dhab looma xaqiijin dagaalka khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, balse waxaa la sheegay sabab la xiriirta awgeed in dagaalku weli uu yahay mid socdo isla markaana uu khasaaruhu sii kordhayo marba marka ka dambaysa. ugu dambeyntiina maamulka Somaliland ayaa waxa ay sheegeen in isku soo dhiibeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsanaa ciidamada Gorgor iyo Haramcad ee xoogga dalka Soomaaliya. maamulka Somaliland ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen isla markaana ay soo bandhigeen ciidamo iyo saraakiil ay sheegeen in isku soo dhiibeen dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. taliska guud ee maamulka Somaliland ayaa waxa ay sheegeen in si aad ay u soo dhaweynayaan saraakiil iyo askar ka soo goosatay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ay sheegeen
inay ahaayeen saraakiishan iyo ciidamadan kuwa la marin habaabiyey. Somaliland ayaana sheegtay inay aqbashay in ciidamadan ay isu soo dhiibaan, waxaana la sheegay in saraakiisha qaarkood oo isku soo dhiibay Somaliland ay cafis weydiisteen maamulka Somaliland isla markaana ay ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada Commandosta Danab iyo Gorgor. waxaana warbaahinta Somaliland ay la wadaagtay ilaa iyo 4 nin oo la sheegay inay yihiin saraakiil iyo ciidan ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya oo isku soo dhiibay maamulka Somaliland. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen Warsida TV waa naga intaay nabadgelyo.